بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وحير إلى داون كان نويت أصلي فرض صلاة الظهر 4 ركعات مأموما وغلط مجلس وحس نيدد كان ينسى الله أكبر نافك كورنسا وايو إن صلاة الظهر تكنيسو وأفر ركعات وضيتها والمساجد كنت كنيسو وإمام كحرانيسو إلهي كبو قبيا وكوغ إلهي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم مركا مشيقين سنيه النبي ما هو صحابتي ما سكيلالي مركا محاول دل لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أعماشو waxay ku xiran yihiin oo ku ansaxmayaan niyada وإنما لكل امرئ قف ولبان wuxuu leeyahay ma nawa wuxuu niyeysto leeyahay afiraya ninkan waa soo daawateen ninkaanu waxa uu ka soo horjeedaa in qofku uu yiraahdo nawaytu usalli farda salaati dhuhri 4 rak'aatin ma'muuman Allahu akbar qofku inuu inta dhaho ayuu ka soo horjeedaa wuxuu ku tilmaamay inay khalad tahay miisaankan saarayna bal ninkan waxa uu sheegay ma saxba mise saxma annaga hortoor in sidaas la dhaho miyay saxan tahay mise inaan la dhihin annaga ma gaarin bal hortoor miisaanka aan waxaan saarno hadal waxaan u yiraahday khalad weeye bal hortoor aan isla fiirino khalad hortoor maxaa la dhahaa khalad waxa la yiraahdaa wax saxan ama shay laga rabay si saxan inaad u samaysid sidii saxnayd si ka bedelan inaad u samaysaa khalad la dhahaa tusaale ahaan fa qor baa lagu yiri markaas ba qorte khalad waay jiim qor baa lagu yiri markaas qaaf qorte khalad weeye لكن قفكي جيم انت قرا هذا جيم يراهدا ما خلط با waxa qortay jiim baa qore wax khalada meesha sortor ma yaalo taa waxa rabaa dadku inay fahmaan kaliya inaan wax fahansiyo waxaana khalada marka la leeyahay khalad waxa la dhahaa sidii loogu talagalay si aan ahayn wixii ku yimaada ayaa khalad la dhahaa laakiin wax saxan oo sidii saxnaa loogu dhawaaqay khalad lama yiraahdo waxaan marka u soo galeynaa kutubtanada maxaa ku qoran nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam cidii raacday cidii si raacday inaan raacno waajib ma tahay nabiyullaahi maxamed asxaab rasuulillaah baa raacay asxaab rasuulillaah gadaashoodna taabiciin baa raacay iyo taabici marka maanta taabicigi iyo taabicigi cidana dhahayso wixii taabici uu sheegay waa khalad waxaan aniga ku sheegaa saxan ilaa nabigu wuxuu yiraahday sallu kama ra'aytumuni usalli sida aan aniga u tukanahay u tukadu yiri nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam xaabta waa soo gudbiyeen taabiciintii bay gaarsiiyeen cilmigii iyo diintii taabiciintiina markii ay ka xambaareen asxaabtii taabici bay gaarsiiyeen waa saddexdii qarni oo nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo amaanay way saddexdii qarni fadliga iyo khayrka oo marqaati kacay nabiyullaahi maxamed waa dadka salafka ah oo aan leenahay waa ku dayanaynaa oo lagu dayanahay waa dadkaas quruntaas asxaabtii iyo taabiciintii iyo taabiciga way saddexdii qarni hore marna shanta qarni hore la dhahay laakiin aan isku soo duubnay nin ama qolo isku tilmaamta salafiyo annaga waxa la dhahaa salafiyo oo salafkii baan raacsanahay marna salafkii wixii ay yiraahdeen khalad weeye dhahaya meel ay u jeedaan iyo meel ay ka jeedaan wax garan kara male nimanka marka wahaabiyada ah kaliya ujeedkooda waxa weeye diinta islaamka inay burburiyaan wax kale ma dagaal oo waxay ku hayaan culumadii diintana soo gaarsiisay xaq ahaa sidii fiicnaa oo ugu macaanaydna wax nagu soo gaarsiiyay caamada si ay wax ku fahmi karto wax nagu soo gaarsiiyay si sahlan wixii ahayo dhanbay dagaal ku hayaan oo ay burburinayaan oo maalin walba macnaheedu hadii la kuurayo qodob ay ula soo baxayaan markaan inta ka soo noqdo qarnigii 15aad baa horta ku jirnaa bidcadu qarnigii 12aad maxaa cabdi soo baxay wixii inta ka dambeeyay markii laga reebo ibn timiya oo aabahoodii hore ah markii laga reebo waa dad intaas jooga way qarnigii 12aad wixii ka dambeeyay intaas wixii ka dambeeyay diinta buuq iyo qaylo iyo propaganda waxaan ahayn kuma aysan wadin gaalo ay diinta ay gaarsiinayaan ma jiro waxay kaliya ay ku mashquulsan yihiin dadkii muslimiinta ahaa inay gaalaysiiyaan diintii inay la diraan mashquulkooda waxa waaye dadkii muslimiinta ah ay ku mashquuleen meeshii la rabay inay diinta dacwada ay ummadda kala gaarsiiyaan muslimkii dhexdoodii ayay burburinayaan hortood nimanka waa nimanka khawaarija waa noocaas weey marka la yaab male marka waxaan rabnaa inaan u soo gudubno 14 qarni ama 13 qarni wax lagu soo dhaqmaayay ayuu maanta rabaa nin khawaarij wahaabiya inuu afka ku taago ayadoo wax khaldan aysan meebshaba ku jirinba ayay rabaan inay buuq ku furaan hadaba aan isla fiirino salaada arkaanteeda markii 13 la yiraahdo rugniga ugu horeeyo waxa weeye niyo way kutubtayna ugu qoran tahay fiqiga ugu qoran tahay al-awwalu an-niyya tan ugu horeyso an-niyya niyo way niyadii marka waxay rabtaa fasir bay rabtaa dadka in la fahansiiyay rabtaa niyadii niyo maxaa waaye marka ilaan diinkaanu in wixii lagu furfuro oo lagu fahansiiyo intii iyo qaabkii aad diinta ula qabsan lahayd way muhiimadu marka niyadu horta hore maxay tahay culimadu waa noo sharaxeen
نية لوقو يا شرعي وحبي بيلاده لوقada القصد baa laha shay loo qasdaa la yiraahdaa luuqo iska gaaban yahay warkiisu xagga iska dhig ana ujeedkan ka rabna xagga sharciga niyada sharciga maxaa lagu yiraahdaa qasdu shay muqtarinan bi fi'li shayga oo loo qasdo oo lagu dhaqaaqo ayadoo oo markaas falkiisi lagu xijinayo shayga in la sameeyo lagu xijinayo ayaa niyo la yiraahdaa niyadu horta taas weey okay qofkaana marka wuxuu rabaa inuu salaad tukado salaad markii uu rabo inuu tukado maxay ahayd marka niyada waa shay koowaad oo salaada uu ka bilaabayo oo koow ah niyo ahayd niyadii marka maxaa waaye qasdu shay inaad u qasadid muqtarinan bi fi'li ficilkiisa inaad ku xijinaysid shaygii aad rabtay oo salaada ahaa noocuu yahay salaada tukanaysid magaca ay leedahay cadadka ay ka kooban tahay inaa ma'muum tahay yani in qalbi intaas oo dhan qalbiga aad keentaa la rabaa oo qalbiga aad ka tiraahdid oo ka sheegtid qalbigaaga usalli farda salaati dhuhri 4 ragcaatin ma'muuman qalbiga waa inay intaas isugu timaadaa salaa inaad niyeysanaysid nawaytu usalli farda salaati dhuhri 4 ragcaatin ma'muuman intaas qalbigaagu inay isugu timaadaa la rabaa inaad ku dhawaaqday marka wixii qalbiga aad ka tiraahday qalbiga inta aad ka tiraahday inaad carabka aad ka tiraahdid waxay culumada ka yiraahdaan waa sunno inay dhahaan si fiican u fiiri inuu inta hadda aan ku iraahdo qofku dhaho qalbiga uu ka yiraahdo waa shay waajib ah taas ogow waajib weey usalli farda salaati dhuhri 4 ragcaatin ma'muuman qalbiga ina halka ku qabatid waajib waaye dhagaafur okay shaygii marka halkaas qalbiga ah waajibka ku ahaa ina carabka uga dhawaaqdid oo aad tiraahdo nawaytu usalli farda salaati dhuhri 4 ragcaatin أداء لله تعالى مأموما الله أكبر إن عربك كتراهدين بالوير والسنة أو محادعي ليساعد اللسان القلب عربكو إنه قلبك حجيه أو مركي عربك قلبك أيسقف صدان لك صلاة هذا مركي صلاة مقعيسين صح نوي وحلقيها أدقو قبله إن ماشي سوي استاكتد الله أكبر أسكتراهد الله أكبر دي صلاتكم ما حرمي مركز ما حرمي الله أكبر تريه معاكو حرمي معاكو كنيسة maxay tahay horta ruuxaas Allahu akbar inaad qalbiga ku qabataa la rabaa saasu socota qalb Allahu akbar wax ka jira male saad maantaas sababtoo ta waxa la rabaa qof markuu soo istaago inuu si qumaati markuu istaaga caadi ah inuu qalbiga ku qabtaa la rabaa intaas hadduu xataa afka dhin inuu qalbiga inta hadda aan iraado waajib weey inuu ka dhaho qalbigiisa inuu carabka ka yiraahdana wuu kaalmeynaya qalbiga ayuu kaalmeynaya marka shaygii أفك أتكديس أصلي فرض صلاة الظهر 4 ركعات أداء لله تعالى مأموم الله أكبر آتري سيخلت كل نقطة وابا واجب لغارب وقلبي لغارب مركا كي قلبي لغاربي يا كعرب كلا هذا إسوافقين خلط ماشي ما بيالو ما خلط أرتور وح خلط ماشي ما يالو واحد حقته منها كراز مجران وحكون صح مركا waxa laga yaabaa inuu yiraahdo nabiga hadii aan ku rooyaa kama sugnaanay intaas way wax kaliya dhigi karaan in lagu dhawaaqo nabiga kama sugnaanin sallallahu alayhi wasallam alayhi hada nabiga yeesa ka sugnaanay nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi inuu salaada saa ugu dhawaaqay yeesa ka sugnaanay salaada wax la mid ah waajiba ayuu nabiga iyadoo niyo ah ku dhawaaqay oo meesha culimada ay ka qaateen niyo lagu dhawaaqo ayaa jira oo nabiga markii uu xaj iyo umro u sameeyay wuxuu yiraahday nabiga uu ku dhawaaqay labbayk umratan wa hajjan nabiga yaani wuu ku dhawaaqay niyo ahayd soma niyo lagu dhawaaqayo nabiga ka sugnaatay sallallahu alayhi wasallam alayhi shay la niyeysto oo lagu dhawaaqayo nabiga ka sugnaatay markuu soo xarmanahay nabiga ayuu wuxuu yiraahday labbayk hajjan wa umratan wa hajjan fiiri nabiga ku dhawaaqay marka waa niyo lagu dhawaaqay markii niyadii lagu dhawaaqay hadii halkaana lagu yiraahdo niyada qalbiga ku jirta waad ku dhawaaqi kartaa oo waa shay sunna ah way banaan tahay maxaa yeelay xajkiiba nabiga niyadii uu ku dhawaaqay taasna niyo ahayd tan niyo waay marka niyo lagu dhawaaqay niyo lagu dhawaaqo wax dhawaa ilaahay male mideeda kale waxaad xujo ka dhigatay ilaahay inaad masaajid ku tukanaysid 4 ragcadoodna aad tukanaysid salaad duhur aad tukanaysid miyuusu ku ogeen hada nabiyullaahi maxamed waa anaga hadda ku soo sheegnay inuu yaani umraysanayo oo xajinayo oo kacbada u tagayo miyuusan ilaahay ogeen muxuu marka niyadii uu nabiga ugu dhawaaqay marka hadalkaas hadal qof cilmi yeesan ma wax qof cilmi leh hadal uu ku hadla ma hadal macnaha dadka caamada ah hadalkoodii waxaad ku hadashay
qofka wuxuu wax ku xirtaa waa markii uu qalbigana ka niyeysto Allahu akbar uu yiraahdo markii aad leedahay nawaytu usalli farda salaati dhuhri 4 ragcaat andaa ilaahi ta'ala qalbigay ku xoojisay kaliya fiiri qalbiga bas ay xoojisay laakiin maxaa salaada ku xiratay Allahu akbar marka nawaytu usalli farda salaati dhuhri maxay gashay takbiirta ka hor ay gashay salaada inta aadan xiran ka hor ayay gashay marka taas waxay ku xoojisay niyadii bas Allahu akbar atiri salaada waxay ku xirantay Allahu akbar iyo niyadii markii hore aad xirxiratay oo qufulato meel ku taala marka meel aad wax kala dirirtay meesha ma yaalo adeer gacali diinta inaad baratana waa fiican tahay waa ka wareertay marka waxaan ku dhihi lahaa salafiyada dadka isku tilmaamaatiina salafkii imaam shaafici dadkii salafka ahaa way hadaad marka wax raacaysid imaam shaafici raac marna hadhina salafiyan nahay oo salafkii baan raacsannahay marna salafkii waa beenaalayaal hana dhihin anaga diin khaldan bay noo keeneen hadhin marna shaaficiyan nahay hana dhihina ilan kutubtii shaaficiyada inaad la dirirtid oo maalba aad maaragtaa idamka ilaahay raddi aad ku wadid shaaficiyana waan ahay leedahay ma iskeenayso marka isma qabato shaaficiyana hadana waan la dirirahayaa shaaficiyadii isma keenayso salafiyana salafkii baan raacsanahay haddana salafkii baa yani haddii la kuran waxba kama jiraan warkoodu waa qaldan yahay dhegtiinii afkiina waxaa ismaqlaan marka laakiin caamada waxaan leeyahay usalli farda salaati dhuhri 4 ragcaat cinda ilaahi ta'ala wax ka qaldan ma jiro cid walbo oo markaas rabta inay tiraahdo dhaha way idin fiican tahay xasuustii bay ku soo celinaysaa qalbiga waxa laga yaabaa asagoo maqan oo ganacsada hadaa tahay ganacsiga ku maqan ama xisaabaad kale isku dhufsanayo ayaa laga yaabaa inaad soo istaagtay meesha salaada markaas Allahu akbar kaligeed wax macna kugu ma xirmayso Allahu akbar oo aniyadan Allahu akbar waa laga horeeyaa rugniga koowaad maxaa waaye aniya salaada aad tukanaysid oo faradka ah oo 4 ragcadood ah oo ma'muumka tahay waajib weeye inaad qalbiga inta ku qabatid usalli farda salaati dhuhri 4 ragcaat inda ilaahi ta'ala inaad tiraahdid qalbiga ka dhaadid waajib waay marka intaas hadaada qalbiga aad ka dhihin salaad kuma jirto ha islu goyn waabi wala caamal la waalay oo habiya iska raacday wax salaada kuma jiraan Allahu akbarna salaada kuma xiranto niyo la'aante Allahu akbar waxa ka horeeya niyadii hadaysan hagaagsanayn Allahu akbar wax macna ma keenayso marka wax salaadaha kugu xirmaayana ma jiraan dhagaha la furo waxna la fahmo Allah idin fududeeyo halkaas aan ku soo koobayaa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh